Samsung waxaa bilaabay 1938 ahaydna tukaan yar loona aasaasay inuu iibiyo noodleska, kalluunka qalalan iyo khudaarta. Waqtigaas khayr macquul bay ahayd in la suureystay inay Samsung noqon doonto mid ka mid ah shirkadaha ugu qaalisan soona saarta in ka badan inta aad u malaynayso. Samsung waxay dhistay fooqyo dhaadheer, wadooyin, dhaqaatiir, dhar, robotyo iyo waxyaabo kale badan. Waxay xataa yeesheen qayb birka ah oo u samaysa helikobtero iyo taangiyo ciidamada militariga. Laakiin waynu gaari doonaa waxaas oo dhan. marka hore aan barano Lee Byung-chul kaasoo aasaasay Samsung markuu da'da ahaa 28 sano. wuxuu sheegay inuu habeen cabsi ku toosay oo uu dayacayo noloshiisa ayna tahay waqtigii uu noloshiisa hadaf u samaysan lahaa. kadib wuxuu habeenkaas u go'ay inuu samaysto ganacsi. marka laga imaado bilowgii yaraa ee ahaa Samsung inay iibiso khudaarta, Lee wuxuu ahaa mid riyo dheer leh. wuxuu doortay magaca Samsung oo luqadda Kooriyaanka ku noqonaya 3 digood, taasoo markaan inagu eegno u eeg sidii wax tayo yar, laakiin Kooriya dhexdeeda nambarka 3 aad buu caan u yahay, waxaana uu matalaa wax weyn oo awood badan. haddawuhuna waxay u dhigmaan wax cimrigiisu dheer yahay. Weyni awood leh oo cimri dheer waa sida ugu quruxda badan ee lagu micneeyo sida ay Samsung noqotay. laakiin markii hore umay muuqan Samsung mid badbaadaysa maadaama uu dagaalkii Kooriyaanku aad u saameeyay ganacsiga Lee iyo gebi ahaanba wadanka. waxa weliba dagaalkii kadib dhacay baahi weyn xagga badeecadaha, waxaanay Kooriya aad ugu tiirsanayd importiska. marka wuxuu Lee go'aansaday inuu meel kale u jeediyo ganacsigiisii, sameeyana alaab u jaban dadweynaha isagoo sameeyay warshad sonkor. kadib faa'iidadeedii wuxuu ku furay warshad ugu weyn ee dunta. taasi waxay u ogolaatay Samsung inay u ballaariyaan tolmaha. kadib waxay bilaabeen inay sameeyaan alaabo dhammaystiran sida dharka. maadaama ay ganacsiyada kala duwan badbaadisay Samsung, wuxuu Lee go'aansaday inuu ku wado qaabkaas si weyn weliba. wuxuuna lacagtii uu sameeyay dib ugu maalgashaday waxyaabihii kale, sida inuu furo goob ganacsi kuna biiro ganacsiga caymiska ama insuranska. xaqiiqdii ilaa maanta Samsung waa shirkadda insuranska ee ugu weyn South Korea. koritaankaas xawliga ah ee ganacsigiisa waqti badanba kamay xigin intuu Lee ku noqonayay ninka ugu taajirsan wadanka. waliba wuxuu noqon doonaa mid ka sii taajirsan intaas. 1968 maamulayaashii Samsung waxay yeesheen shir ay ku go'aaminayeen suuqa xiga ay gali doonaan oo ah elektroonika. sanad kadib waa la dhammaystiray qaybtii Samsung Electronics, waxaanay sameeyeen TV 12 inch oo black and white ah. 10 sano gudahoodna waxay noqon doonaan shirkadda ugu horeysa ee soo saarta TV-yada black and white-ka, waxaanay guushani u ogolaatay inay bilaabaan soo saarka dhammaan noocyada kala duwan ee alaabaha guryaha. sida 1979kii waxay bilaabeen samaynta microwave-yada. 1980kii waxay bilaabeen soo saarka AC-yada. 1981diina waxay soo saareen TV-yadii kalarka lahaa. 1983kiina waxay galeen samaynta kombiyuutarada shakhsiga ah. muddo yar kadibna waxay ogaadeen si ay u soo saaraan alaabahan elektrooniga ah oo dhan inay aad ugu tiirsanaayeen inay dibadda kala soo degaan chipska laga sameeyo. marka waxay iibsadeen shirkad samaysa chipska si ay u haystaan kontaroolka oo dhan. umay isticmaaleen chipskan si ay u sameeyaan uun alaabahooda, waxaabay bilaabeen inay ka iibiyaan shirkadihii kale ee sameynayay elektroonika. weliba shirkadahaas kale ee macmiilka waxaa ka mid ah Apple, kuwaasoo memory chipska Samsung u adeegsada telefoonadooda iPhone. marka laga imaado xaqiiqda ah inay labada shirkadood col ku yihiin suuqa smartphone-ka, taasoon gaari doono xagga dambe. laakiin waxa la yaabka leh ee Samsung wuxuu yahay waxyaabaha kaloo dhan ay isku ballaariyeen eedan caadiyan maqlin. tusaale ahaan, qayb la yidhaa Samsung Heavy Industries ayaa waxay Samsung ku samaysaa maraakiibta waaweyn, waxaanay ka mid yihiin shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya maraakiibta waaweyn. waxaa sidoo kale jirta qayb kaloo la yidhaa Samsung Construction and Trading, taasoo samaysa wadooyinka, tanalada, biriijyada iyo dhismayaasha. ma rumaysanaysaa dabaqa adduunka ugu dheer ee Burj Khalifa inay dhistay Samsung? dhismihii kasii horeeyay ugu dheeraana qayb ka ahaayeen dhiskiisii. waxay xataa leeyihiin theme parka ugu weyn South Korea oo la dhaho Everland. waxay sidoo kale leeyihiin hoteelo iyo weliba magaaladan oo la yidhaa Samsung Town. marka maadaama aynu badi ku naqaano Samsung inay sameeyaan moobilada iyo elektroonikiyada sida TV-yada, intaasi waa buurta afkeedii. sidaasaynu weliba sheegin foundationskooda kaasoo ka kooban jaamacad iyo dhakhtar la yidhaa Samsung Medical Center. hey, Samsung waxay leedahay qayb caafimaad. siday doontaba ha ahaatee, xaqiiqada ah inay Samsung isku ballaariyeen ganacsiyo badan waxay ka dhigmi kartaa inay tahay qiso business oo guulo badan gaadhay. waa wiil yar oo entrepreneur ah oo ku bilaabay fikir yar oo simbal ah, kadib u ballaariyay suuqyo kaloo badan, kadibna u bedelay hanti aad u weyn. laakiin taasi maaha qisada xaqiiqdeedii oo dhan, oo sheekada dhabtii intaas way ka muran badan tahay.
saamayntii dagaalkii Koreaniska kadib South Korea waxay ku jirtay xaalad xun ma lahayn wax soo saar iyo export badan wuxuu madaxweynuhu aad ugu cilqabay inuu ballaariyo dhaqaalaha wuxuuna go'aansaday inuu taageero siiyo businessyada waaweyn ee waddanka isagoo siinaya dhaqaale kana ilaalinaya wax la tartama si kale markaynu u dhigno waxa Samsung iyo dhowr kaloo shirkadooda waaweyn la siiyay lacago deyno ah oo aad u waaweyn cashuur dhaafyo khaas ah iyo waxyaabo kale oo ay dawladdu ku taageertay si ay u ballaadhaan qorshuhu waxa uu ahaa garabka la siinayo shirkadahan si ay u koraan inay kor u qaado dhaqaalaha waddanka tusaale ahaan isla markii ay Samsung bilowday iibinta elektroonika waxay dawladda South Korea mamnuucday waddamadii kale oo dhan sida Japan inay ku iibiyaan elektroonikiska South Korea dhexdeeda iyadoo ku qasabtay dadkii inay ka iibsadaan Samsung bedelkeeda waqtigaas waxay dawladda South Korea hoos u riday 50% cashuurihii shirkadaha elektroonika ka shaqeeya Samsung aad bay uga horeysay shirkadaha kale oo dhan marka iyaga arrintan aad bay uga faa'iido badnayd waliba lacaga taageero ah oo dawladda Mareykanka ka helaysay dagaalka kadibna Samsung ayay toos u siisay taasana u saamaxday inay si xawli ah u koraan sababtana waxa lahaa asaasihii Samsung ee Lee iyo siyaabaha qorshaysan ee uga faa'iideysan jiray xiriirada uu la leeyahay dalka madaxdiisa sida inuu la noqdo saaxiib dhow madaxweynaha South Korea saaxiibnimadaas natiijadeedu waxay ahayd inay Samsung hesho fursado gaar ah sida inaanay yeelan limit export sida shirkadaha kale oo dhan waxa sidoo kale jirtay arrin ay dawladdu bangiyada ku amrayso inay Samsung u ogolaadaan deymo badan si ay Samsung u sii ballaadhato laakiin markii Lee uu ka helay lacagtii bangiyadii wuxuu lacagtii dib ugu isticmaalay inuu ku iibsado isla bangiyadii lacagta siiyay qaarkood waa run in caawinta dawladdu siinaysay Samsung ay waddanka dhaqaalihiisa kor u qaatay gaar ahaan maadaama ay Samsung dad aad u badan waddankii shaqo gelisay laakiin haddana garabka ay dawladdu siinaysay Samsung waxay dhibaato gaadhsiisay ganacsatadii yaryar ee dalka sidee ula tartami kartaa shirkad aad u weyn ay weliba dawladdu taageerayso Samsung way burburinaysay cid kastoo hor istaagta markay suuq cusub galaanba taasoo ka dhigan inuu leeyahay calaamad u taagan musuqa waxa sidoo kale lagu murmaynay dawladdu caawisay Samsung ilaa xad uu waddankii dhanaa dhaqaalihiisii ku tiirsanaado hal shirkad haddii wax yar ka xumaadaan Samsung waxay aad u saameynaysay waddanka maadaama ay Samsung ku lug lahayd ganacsiyo aad u badan xog ururin la sameeyay 2014 waxa lagu ogaaday inay Samsung haysatay 17% dhaqaalaha dhan ee waddanka South Korea Samsung waa mid ka mid ah shirkadaha ay lahaayeen qoysas kuwaasoo awoodoodu weyn tahay ilaa xad ay dawladda dhan gacantooda ku jirto waxa sidoo kale jiray kuwo kale sida LG iyo Hyundai laakiin Samsung baa ugu weyn marka maadaama businessyada waaweyn ay gacanta ku hayeen familiyadaasi waxay u dhignayd in dhowr family ay South Korea gacanta ku hayaan dhaqaalaha awoodda iyo saameyntaba marka kadib markii uu dhintay asaasihii Samsung Lee Byung-chul 1987 wiilkiisii Lee Kun-hee ayaa la wareegay businesskii waana meesha xiriirkii ay Samsung la lahayd dawladdu uu sii dhaliyay doodo badan 1996 Lee Kun-hee waxa lagu soo eedeeyay inuu siiyay laaluush madaxweynihii hore dalka siday doontaba ha ahaatee maadaama ay Samsung xiriir la lahayd dawladda madaxweynaha xilligaas joogay ayaa ka cafiyay dibna looma sii dabagelin haddana 2008 waxa Lee Kun-hee lagu soo eedeeyay inuu laaluush siiyay madax isugu jirta garsoorayaal iyo siyaasiyiin waana lagu oogay dambi ah cashuurka dhuumasho iyo lacag dhiqid taasoo uu raaligelin ka bixiyay kana degay maamulkii shirkadda laakiin wax xadhig ahi ma jirin 2 sano gudaheed madaxweynihii cusba ee South Korea ayaa xafiis siiyay wuxuuna Lee Kun-hee ku laabtay kursigiisii maamulka shirkadda sidii aanay waxbaba dhicin 2 maroo kala duwan ayaa Lee Kun-hee lagu eedeeyay laaluush musuq iyo cashuurka dhuumasho labadii marbana wax xadhig ah lama siin waana laga cafiyay qaladkiisii iyadoo loo hayay cadeymo waxay taasi ku tusinaysaa sida uu u weynaa xiriirka Samsung iyo dawladdu xataa haddii si public ah loo eedeeyo madaxweynaha bedelayay sharcigaas weliba arrintu intaas way kasii weyn tahay buug muran dhaliyay oo la yidhaah Think Samsung oo uu qoray maamulihii hore Samsung xagga sharcigu waxa lagu sheegay inuu Lee Kun-hee ka xaday $9 bilyan shirkado hoos imanayay Samsung oo tirtiray cadeymooyin sidoo kalena ku laaluushay madax sare ee dawladda ah inay ku habsadaan in wiilkiisa uu dhalay uu ku dhaxlo kursiga maamulka ee Samsung way diiday eedeymahaas loo soo jeediyay tiifiyadii wararka badankoodiina way diideen inay soo hadal qaadaan buugaas sababtoo ah Samsung waxay ahayd qayb weyn oo ka tirsan waddanka weerar Samsung lagu soo qaadina wuxuu u dhignaa in waddanka South Korea weerar lagu soo qaaday waxa sidoo kale macquul ah inaanay meediyuhu rabin inay isugu dhowaadaan Samsung marka la eego awooddu ay leeyihiin tusaale ahaan article loo bixiyay South Korea The Republic of Samsung ayuu authorkii qoraalkaasi ku sheegay inuu maamulaha Samsung ka awood badan yahay
madaxweynaha South Korea iyo sida ay bulshadii badankeedu ugu arkeen inay Samsung tahay lama taabtaan sharcigana aan waxba ka qaadin. waxay shirkadu haysatay saamaynta ugu badan dowladda, miidiyaha iyo gebi ahaanba waddanka oo dhan. intaasuun kuma joogina markii uu ugu dambayn la wareegay kursigii wiilkiisii waxaa isna lagu eedeeyay lacag dhiqid iyo laaluush bixintiyuun. runtii ma raba inaan ku daalna ficilada ay sameeyeen ashqaas yaro dhowrahay. Samsung waa shirkad aad u weyn oo leh 100,000 oo shaqaale. mana aha cadaalad in loo dhaliilo qaladaadka dhowr shakhsi gebi ahaanba Samsung. weliba sida iska cad Samsung waxay qabatay waxyaabo badan oo wanaagsan waddanka dhexdiisa. haddana waxaad isweydiinaysaa markaad aragto arrimaha madow iyo laaluushyada ay bixiyeen iyo weliba xidhiidhada qarsoon ay dowladda la lahaayeen inaanay Samsung ahayn shirkadda khayaaliga ah ee aad ku aragtay chapter 1kii. siday doontaba ha ahaatee maynaan dhammayn weli sheekada, sababtoo ah sheeko kastoo Samsung ku saabsan ma dhammaystirna ilaa la sheego masiibadii ugu weyneed ee taariikhda Samsung. bal suurayso adoo qolkaagii ka soo dhex toosay haddana aad aragto un qiiq badan oy ur aad u qarmuuni ku qabsato neeftuna kugu dhegto. kadib dhinaca adeegto ood aragto telefoonkaagii Samsung Note 7 smartphone oo ololaya. waxay arrintani dhacday dhowr mar meelo kala duwan adduunka 2016. diyaaradihii caalamkuna waxay dhammaanba duulimaadyadoodii ka mamnuuceen moobilkii. waxaa isweydiinta mudan inay Samsung ogaayeen dhacdooyinkan wax tallaabo ahna aanay ka qaadin. aad bay uga gaabiyeen inay ka falceliyaan. gubashadii moobiladuna way sii socotay ilaa xad ay miidiyihii soo qaateen sheekadii Samsungna lagu qasbay inay joojiyaan productionkii oo ay dib uga soo celiyaan moobiladii suuqa. waxaana arrintaas kaga baxday $5 bilyan ku darso iyo hoos u dhicii sumcaddooda. weliba kaaga sii daran beddelkii ay sameeyeenna isla ciladii kululaanshuhu yeeshay. waxay daleecayntii saareen baytariyada, laakiin ma ahayn ciladu intaasun. ma ahayn dhibaatadu wax yaroo la bedeli karo ee waxay ahayd dhisaanka gudaha iyo qaabka componentska la isugu dhaweeyay. laakiin sabab kaloo jiray asalka guud ee problemska waxaa lala xiriiriyaa dagaalka Samsung ee socday ee la lahayd Apple. haddaan dib ugu soo noqono 2011kii waxay Apple ku dacwaysay Samsung inay koobi garaysay dhisaanka iPhone-kooda waxaanay ka rabeen bilaayin dollar. Steve Jobsna wuxuu ku tilmaamay inay copycat yihiin. Samsung waxay u arkeen inay tooxsanayaan maadaama ay iyaguba dhowr dhisaan shirkado kale ka keeneen. laakiin waxa maamulayaasha Samsung ka gooneed inay sameeyaan wax cusub. waxaanay u bedeleen hadafkoogii inay ka tagaan inay wax ku daydaan oy una wareegaan in iyaga lagu daydo. sidaasaanay ku sii daayeen silsiladii Galaxy Note series, device isugu jira tablet iyo smartphone. laakiin modelka Note 7 waxay maamulayaashii Samsung rabeen inay ku biiriyaan fiicharo cusub. waxay sidoo kale rabeen in waqti yar oon macquul ahayn lagu diyaariyo moobiladaas. waxay injineeradii Samsung sheegeen in arrintu culays ku noqotay inay ku diyaariyaan waqtigaas kooban. may ogeen waqtigaas in tartanka ay kula jireen Apple dartii ay Samsung dedejiyeen samayntii alaabtoodii oo keenayso dhibaatooyin. waxay moobiladii u sameeyeen fiicharo cusub waqtina may gelin ay ku hubiyaan tayada alaabtooda. dabcan intaanay arkin dhibaatooyinka ka hor waxay iibiyeen malaayiin telefoonada ah adduunka daafihiisa lacago badanna ku bixiyeen suuqgeyntooda. Samsung waxay isku dayeen inay daboolaan oo qariyaan informationka arrintooda. tusaale ahaan markii dadku sameeyeen inay ka toocsadaan moobiladooda iyagoo gameka GTA bambakacmeed ahaan u isticmaalayeen Galaxy Note 7, Samsung way dacwaysay lagana saaray videoskii, taasoo sii dhalisay muran iyo dood badan. siday doontaba ha ahaatee iyadoo waxaasoo daraama ahi ay jirtay, haddana waxay iska cad in Samsung ay sii waday guulo badan oo aan caadi ahayn. waxay sameeyeen products aad u cajiib ah sida telefoonno isku laabmaya. waxaanay sameeyeen lacago ama revenue ka badan inta ay sameeyeen shirkado waaweyn sida Google iyo Microsoft. waxaana shaqi la'aan ah inay hore u sii socdaan ayna geli doonaan suuq walbo jira. marka dib loo eego sida yare Samsung loo aasaasay, waxaa cajiib runtii sida ay shirkadii maanta noqotay. fikirkayga ahaan arrintaasi waxay caddeyn u tahay in haddii la sameeyo dadaal badan ay cid walba ganacsigooda yar ay u bedeli karaan boqortooyo weyn. haddii aad tahay qof leh riyo fikrabana inuu barto ganacsiga, dhaqaalaha, marketinka iyo waxyaabo kaloo badan si aad uga barato qaabka ay shirkadaha ugu waaweyn u shaqeeyaan, la soco channelkan notificationkana furo. inta aan videogan mid la mida kuwada kulmaynana waad salaamantihiin.